kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halka muuqaalka TV waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena qodobada barnaamijkeena ku eegi doono waxa qayb ka cagdaro dhulka la jaray maamulka Muuse Biixi iyo Somaliland oo xaalku ku xun yahay wararka ugu dambeeyay saxbeel eegi doona waa sidii xaaladda guud ee deegaanada Laascaanood ciidankii SSC oo heegan la geliyay iyo Muuse Biixi oo diyaariyay dagaalkii ugu cuslaa oo ku qabsan Laascaanood beesha isaaq oo ku dacdacsada dhul bahante xilli ay isaga habarwacdeen dalkii dibadda xaalka mas'uuliyiintii ku dhaawacmay weerarkii Baardheer oo liita iyo weerarkii ugu dambeeyay qasaraha ka dhashay qaraxidii gobolka Gadow qodobadaasi qodobo kale aad warkeena ku daawan doontaan fadlan muuqaalka laagsar oo shargaray aynu ku bilowno warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qasaare baaxad leh oo ka dhashay qarax ismiidaamin ku bilowday oo saaka lagu weeraray guriga martida ee magaalada Baardheer ee gobolka Gadow xilliga la weerarayay guriga martida waxa ku sugnaa mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Gadow saraakiil uu hogaaminayay taliyaha qaybta 4-3 ee ciidanka xoogga dalka iyo siyaasiyiin kale weerarka ayaa la sheegay in loo adeegsado gaari nooca aan xabada karin oo laga soo buuxiyay waxyaabaha qarxa kaas oo lagu dhuftay albaabka hore ee guriga martida oo hoy u ahaa gudoomiyaha gobolka Gadow iyo saraakiil kale xogaha aynu helayna ayaa sidoo kale sheegaya in weerarka ismiidaaminta ugu yaraan 2 ruux ay ku geeriyoodeen halka tiro inta ka badan ay ku dhaawacmeen waxaana dadka dhaawacmay ku jira gudoomiyaha gobolka Gadow Axmed Buula Gareed iyo sidoo kale abaanduulaha qaybta 43aad ee ciidanka xoogga dalka Cornel Axmed Cabdullaahi Labaale sidoo kale waxa burbur xoogan uu soo gaaray qayb ka mid ah gurigan oo lagu magac daray guriga martida oo ku yaala degmada Baardheer ee gobolka Gadow wararka ayaa intaasi ku sii daraya in qaraxa kadib tiro hoobiyayaal ay ku dhaceen isla gudaha magaalada Baardheer waxaana guri ku yaal halkaasi ku dhintay 2 caruur oo walaalo ahaa halka ay tiro kale ku dhaawacmeen xilliga qaraxa ismiidaaminta u dhacayay waxa la sheegay in xarunta uu ka socday shir gaar ah oo ay lahaayeen mas'uuliyiinta waxyeeladu ay ka soo gaartay weerarka waxaana la soo wariyay in kuwa kale ay ka badbaadeen waxaana muhiimadda kulanku ahaa howlgallada la rabo in laga bilaabo gobolka Gadow ee lagu xureynayo goobaha shabaabka ee maamulaan ee Jubbaland ciidamo fara badan ayaa gaaray goobta weerarku ka dhacay waxaana gabi ahaanba la xiray wadooyinka soo gala degmada Baardheer ee gobolka Gadow dhanka kale xukuumadda Somaliland ayaa waxay war ka soo saartay xaaladda magaalada Laascaanood ee gobolka Sool oo maalmihii ugu dambeysay aysan wax dagaal ka dhicin Somaliland waxay sheegtay in sababta ka dagaalka u dhaxeeya ciidamadeeda iyo kuwa deegaanada SSC ay tahay in ay ciidamadu awood darro soo food saartay oo ay kooxahaasi ka soo horjeedo Somaliland ay wadaan abaabul iyo dhagar kale oo ay u soo maleegayaan ciidanka Somaliland sida lagu yiri war ka soo baxay wasaaradda warfaafinta maamulkaas Jubiga Laascaanood waxa uu ahaa mid nabadgelyo ah oo wax dagaal ma uusan dhicin marka laga reebo xabado kooban oo mararka qaar ay soo ridayaan kooxaha nabadiidka kuwaas oo ciidamada qaranka ay ku bixinayeen jawaabo ku haboon ayaa lagu yiri war ka soo baxay xukuumadda sidoo kale warkan ayaa lagu yiri kooxaha nabadiidka waxay todobaadadii ugu dambeeyay ku jiraan guubaaba dagaal oo xoog leh inkastoo oo tabar kasto ay isu keenaan aysan awoodi karin quwad ciidan oo ay isaga caabiyaan ciidamada Somaliland ayaa sheegtay in ciidamadeeda iyo saraakiisha sare ee hogaaminaya ay markasta xirinayaan meel dhalka wada hadalka lagu rabo in xal nabadeed looga gaaro xiisada dagaal ee ka taagan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool maalmihii la soo dhaafay xaaladda magaalada Laascaanood waxay ahayd mid deganaan ah waxaana istaagay dagaalkii ka socday magaalada inkastoo wali ay soo fadhiyaan ciidamada labada dhinac sidoo kale waxa socda dadaal xal loogu raadinayo xiisada dagaal ee ka taagan magaaladaasi iyadoo qaramada midoobay ay guddi xaqiiq raadina u saartay arrintan kuwaas oo durba bilaabay inay u kurgalaan xaaladda magaalada iyo qasaarihii weeraradii dhacay xubnaha ka socda qaramada midoobay ee gaaray magaalada Garowe ayaa halkaasi kula kulmay waxgaradka SSC ayagoo kala hadlay dhibaatadii ka dhacday magaalada Laascaanood sidoo kale waxa uu guddiga qaramada midoobay la kulmi doonaa madaxweynaha Somaliland si ay uga hadlaan xiisada taagan si loo soo afjaro dagaalka sidoo kalena loo caawiyo dadka ay dhibaatadu gaartay dagaalka Laascaanood waxa uu qaatay muddo bila waxaana ka dhashay qasaare kala duwan oo soo gaaray dad rayida iyo ciidamadii dagaalamay ee labada dhinac dhanka kale maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya ayaa waxa ay saakay xukun dil toogasho ku fulisay 3 nin oo 2 ka mid ah lagu helay in ay la shaqeynayeen dagaalamayaasha Shabaab iyo dhakhtarkii dilaaga ahaa ee Maxamed Cabdi Nuur Jirow dhakhtar Fanax 3 nin waxa la toogtay saaka waa bari waxaana lagu kala magacaabi jiray Maxamed Cabdulle Abgo Cumar Bimaalow Shariif Maxamed Barqalle ayaan la jaag iyo sidoo kale dhakhtar Fanax Maxamed Cabdulle Nuur Abgo Bimaalow oo ahaa sarkaal ka tirsanaa ciidamada dawladda ayaa lagu helay inuu la shaqeynayay kooxda Shabaab waxaana horay xukun dil ah ugu riday maxkamadda ciidamada qalabka sida kaas oo ugu dambeyn lagu fuliyay xukunkiisa saakay
ninkan ayaa si gaar ah waxaa loogu helay in 23kii bishii Maaj ee sanadkii 2023 uu soo geliyay gaarigii garoonka Muqdisho 2 nin oo ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab kuwaas oo weerar toos ah ka geystay gudaha xerada Xalane ee magaalada Muqdisho taas oo sababtay dhimasho iyo dhaawac. sidoo kale Shariif Maxamed Barqadle Anyaalo isna ka tirsanaa saraakiisha ciidamada dawladda ayaa lagu helay in uu si hoose ula shaqeyn jiray kooxda Shabaab. Ayaanle waxaa la sheegay in lagu helay dembi ah in gawaarida qaraxyada uu Shabaab u soo gelin jiray Muqdisho isaga oo baabuurtaasi dhigay dhowr goobood oo ganacsi ah sida Village Hotel and Restaurant 14 January 2019, Bar Italia agagaarka moolka Xamarweyne Febraayo 4 2019, maqaayada Cagaweyne X-Bilan Restaurant 28 Maaj 2019, xeebta Liida agagaarka Argada May 27 bishii May ee sanadkii 2019 sida ay sheegtay maxkamadda. weeraradaasi ayaa waxaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen ilaa 27 qof oo isugu jira qaybaha bulshada waxaana sidoo kale ku dhaawacmay tirintaasi ka sii badan. ninka saddexaad ee la dilay waa Maxamed Cabdi Nuur Jirow Dr. Fanax kaasi oo ahaa dhakhtar been abuura oo ka horgeli jiray isbitaalada magaalada Muqdisho qaarkood sidoo kalena waxa uu ahaa sarkaal ciidanka xoogga dalka ka haysta darajooyin been abuura. Dr. Fanax oo lagu helay inuu geystay dilal iyo qaraxyo khasaare geystay ayaa laga soo xiray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ugu dambeyn la horgeeyay maxkamadda darajada koowaad ee ciidanka qalabka sida ee Soomaaliya taasi oo ugu dambeyn saaka ku fulisay dil toogasho ah. muddooyinkii ugu dambeeyay maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa kordhisay fulinta dilal toogasho waxaana maalin ka hor tiirka la geeyay Cabdishakuur Axmed iyo Cabdi Jamaal oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya kuwaas oo lagu helay inay dilal ka geysteen magaalada Muqdisho ee gobolada dalka Soomaaliya. dhanka kale senator Maryan Faarax oo ka mid ah senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si adag uga hortimid in xil loo dhiibo qof walba oo ka tirsanaa dagaalamayaasha Shabaab. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa ku jira shakhsiyaad hore uga tirsanaa Shabaab oo haya xilal kala duwan balse waxa ugu sareeya Muqtaar Robow oo gaaray heerka wasiirka. xildhibaan Maryan oo ka mid ah senatarada aqalka sare ee baarlamaanka oo hadal ka jeedisay fadhiga golaha aqalka sare ayaa waxa ay ku dootay in marnaba aysan isbedelaynin caqliyadda qofka argagixisada sidaa darteedna ay tahay in meesha laga saaro qodob u ogolaanaya inuu xil qaban karo marka ay isku dhiibo ama uu isku soo dhiibo dowladda Soomaaliya. sharciga la dagaalanka argagixisada waxaa ku jira qodob ka hor imaanaya magaca sharciga oo waxa uu dhigayaa in qofka argagixisada ka midka ah uu mas'uul qaran noqon karo 5 sano kadib ayay tiri senator Maryan Faarax. si uu hadda isku soo dhiibay isagoo argagixiso ah isagoo og in uu 5 sano kadib xil ka qaban karo dowladda marka waxaan qabaa in qof argagixiso ah uusan xil qaban karin inta uu isagu ka tirsanaana loo ciqaabi karo ayay tiri markale. waxay soo jeedisay in qodobkaasi laga saaro sharciga la dagaalanka argagixisada iyada oo ku dooday in aanu la qaadan karin in qof argagixiso ah uu hadda ka soo muuqdo muraayadda dowladda. hinta sharciyeedka la dagaalanka argagixisada ayaa waxa uu fadhigii golaha aqalka sare lagu marsiiyay akhrinta koowaad iyo tan labaad iyada oo senatarada ee sharcigani dood dheer ka yeesheen laakiin ugu dambeyn labada aqal ee baarlamaanka ayaa go'aankii ugu dambeeyay ku ansixiyay. guddaan saxbir halkaas aynu ku soo gabagabeynaya barnaamijyadeena tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono nabadgelyo.